haddii arrada dusheeda laga waayo wax cadaalad ah haddaba insaanka joogitaankiisa ma lahaanay wax qiimo ah saaxiibkaaga dhabta ah waa midka kugula xisaabtamayo khaladyadaada ee ma ahan saaxiib midka kuu qurxinayo khaladyadaada si uu ku raaligeeyo adiga halkii daqiiqad oo uu xanuunku ku hayo waxay la mid tahay saacad halkii saacad macaansanayso shayna waxay kuula mid tahay daqiiqad haddiise aad iibsato waxaadan u baahnayn haddaba waxaad iska iibisay waxaad u baahnayn aad ayay u fududahay oo ay u sahlan tahay inay dadka ku ixtiraamaan balse aad ayay u adag tahay inaad adigu ixtiraamto nafsadaada ha ku noolaan weligaa laba weji maxaa yeelay ugu dambeyn waxaad dhimanaysaa adiga oo weji la'aan ah taajirka waqtiga uu doonaayo u cunaa cunadiisa balse faqiirku wuxuu cunaa markii uu helo taasina waa farqiga u dhexeeya taajirnimada iyo faqrinimada ha ka yeelin qalbigaaga albaab furooyin badan leh oo aad loo ilaaliyo waxaa kuu filan oo ku dhowrayo hal furo oo wanaagsan oo aad ku xirto dhammaan mugdiyada ahaaday caalamka hal shumac ma suurtagelayso inuu ifiyo qofkii dembi galaa isaga oo qoslayo wuxuu naarti galaa isaga oo oynayo kuwa ku jeesjeesa dhaawaca dadka kuwaas ma garanayaan waxa uu yahay xanuunku mase jiro wax ka awood badan faraska indhaha